السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ولا ليال أد بعدي سلام يا دمانتي نعفقة بعد الرجينا يا كسر هذا تحنيها قيم بودكاستي oo aan idinkula wadaago tallaabooyinka muhiimka ay tahay qofka doonaya inuu wax soo saar yeesho inuu ku dhaqaaqo. Horey waxa aan idinkula sheergareeyay laba tallaabo ama laba jaranjaro oo aad muhiim u ah. Xalqadan waxaan idinkula sheergareynayaa jaranjarada saddexaad ee qofka raba inuu wax soo saar sameeyo laga rabo inuu ku dhaqaaqo. Kanaalkan waxaan ku falanqeeyaa waxyaabaha la xiriira taariikhda, buugaagta, psychology-ga iyo waxyaabaha la xiriira arrimaha waxbarashada. Sidoo kale waxaan ka marnayn arrimaha maamulka hogaaminta. Dhammaan mowduucyada xiisayso kanaalkan kanaalkaadi waayo fadlan ku soo bir insha Allah saaxiibadana noola sii wadaag muuqaalka inoo la garo insha Allah hadii Alla yiraahdo. Tallaabada saddexaad ee muhiimka ay tahay qofka raba inuu wax soo saar yeesho inuu ku dhaqaaqo waxa weeyaan waa inuu doorto shaqo ku habboon. Shaqada ku habbooni qofka waa midda ka dhigta qofka inuu qof wax soo saar leh noqdo ama waa midda ka dhigta qofka bilaa wax soo saar. Mar walba oo qofka bini'aadamka uu doorto shaqo isaga ku habboon, shaqo isaga dabcigiisa la jaan qaadi karta, shaqo isaga mawhibadiisa la jaan qaadi karta, shaqo isaga fikirkiisa iyo garaadkiisa iyo awoodiisa shakhsi ahaaneed la jaan qaadi karta. qofkaasi wuxuu noqdaa qof wax soo saarkiisa uu aad u wanaagsan yahay. qofkaasi wuxuu noqdaa qof wax soo saarkiisa inaba aan caadi ahayn oo waxyaabo fara badan markaas dadka ku soo kordhin kara. Dadka badanaa shaqo aysan aqoon u lahayn ama shaqo aysan ku fiicnayn ama shaqadii loogu talagalay dadka aan qaban waa dadka intooda ugu badan aan wax soo saarkooda markaasi uusan meel fiican gaarsiisnayn. waayo shaqadii ay qabanayeen kuma raaxaysanayaan, wanaag kuma dareemayaan, ma aha shaqo iyaga ku habboon ma aha. saas darteeda mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka ah ee laga doonayo inuu wax soo saar sameeyo waa in uu shaqada uu qabanayo isagu uu yahay mid isaga ku habboon. shaqooyinka marka la qaybinayo labaa loo qaybiyaa. kow product, labo service, labaasaa loo qaybiyaa. dadku ama qofku wuxuu noqdaa qof productiga ku fiican ama waxa uu noqdaa qof serviceka ku fiican. productiga waxaan kala jeedaa dadka qaar waxay jecel yihiin waxyaabaha productiga sida dharka oo kale, sida maxaa weeyaan shopping oo kale, sida waxa weeyaan cuntada oo kale inay ka shaqeeyaan bay jecel yihiin. marka productiga waxyaabaha la taaban karo waayo. shayga marka ganacsiga la keeno ee dukaanka la keeno tusaale kale qofkani wuxuu awood u leeyahay inuu meesha fadhiisto qofkii soo gala uu wax ka gado. dadka qaar baa waxay jecel yihiin dabeecadaas ama shaqada noocaas ah oo la fadhiisanayo oo halkii qof soo gala loo adeegayo. dadka qaar baa dabeecada jecelo ganacsiga iyo waxyaabaha shaqooyinka productiga ah ee la taaban karo ayay jecel yihiin inay markaas ka shaqeeyaan oo muhiimadooda waa halkaas. dadka qaar waxay jecel yihiin serviceka, adeegu waa shaqooyinka wax soo saar kale laakiin haddana qofka bini'aadamka uusan taaban karin. tusaale kale waxbarashada ku jirto, jaamacad baad furatay ama iskuul baad ka shaqaysay ama jaamacad baad ka shaqaysay, waa service, waa shaqo wax soo saar leh laakiin haddana lama taaban karo. waxaa la mid ah sidaas oo kale shaqooyinkan la xidhiidha multimedia, video editingka, photography-ga, broadcast-yaasha inaad samaysid ama aad duubtid. waxyaabahaas oo kale waa waxyaabo inta badan service oo qofka uusan taaban karin laakiin haddana wax soo saar leh. marka bini'aadamka marka ay shaqo qabanayaan, shaqada la qabanayo labadaas loo kala qaybiyaa. marka haddaa rabto marka wax soo saar inaad yeelato adi ahaan ma waxaad jeceshahay productiga ma jeceshahay mise waxaad jeceshahay serviceka adi ahaan macnaa dabeecadaada markaa fiiriso
horta waa inaad labadan qaarad midda aad kala gelaysid waa in aad markaasi aad kala doortaa waa talaabada ugu horeysa ee dhanka shaqada qofka raba inuu waxsaar ku yeesho laga rabo inuu qaado weeyaan labadan mid ku kala cad yihiin waxaa ku kala cadaanaysa markaas shaqada aad ku habboonaan lahayd mustaqbalkaada ama shaqada aad dooran lahayd ayaad waxaa weeyaan dooran kartaa waayo productiga shaqooyina ka farcamayo service-kani shaqooyina ka farcamayo marka haddii tusaale kale productiga aad doorto shaqooyinka productiga ka farcamayo midee ayaa adiga kugu habboon midaas ba dooranaysa haddii aad surface ku fiican tahayne shaqooyinka surface ka farcamaya midee adiga kugu habboon waa in marka hore marka ay ku kala cad yihiin labadan shaqo midii markaas aad adiga qaban lahayd shaqada markaad doorato sidee ku ogaanaysaa in shaqadaani ay tahay shaqadii adiga kugu habboonayd oo markaasi adiga kugu wacnay sidee ku dareemaysaa ilaa 4 talaabo ma kula sheegaraynaya 4 su'aalood jawaabahooda waa inaad heshaa haddii 4 su'aalood jawaabahooda aad heshid waxa kuu fuudaanaya shaqadii adiga aad u qalantay ee adiga muhiimadaadii waxyaabaha la xidhiidha inay markaas shaqada ay tahay in kale taas ku kala cadaanaysa su'aasha koowaad shaqada aad qabanaysid ma ku raaxaysataa adi ahaan culays ma ku dareentaa mise shaqadaani waa shaqo adiga ku raaxaysanaysid oo aad energy ka qaadaysid oo aad waxa weeyaan dhiirigelin aad ka qaadaysid shaqada marka astaanta koowaad waa noocaas astaanta koowaad marka ee lagu garto shaqada inay kugu habboonta waxa weeyaan shaqadu ma ku raaxaysanaysaa markay qabanaysid yani niyad wanaag ma ku dareemaysaa energy fiican ma ku dareemaysaa ma ku raaxaysanaysaayo motivation iyo dhiirigelin fiican shaqada ma ka helaysaa su'aashaas baad ka jawaabaysaa haddii aad ku dareemayso shaqadaas waa shaqadaada su'aasha labaad waa u gudbaysaa su'aasha labaad waxay ku leedahay shaqada aad qabanaysid ma leedahay wax soo saar ma leedahay wax soo saar ma leedahay shaqadaani yacni marka aad shaqadii aad qabato ma dareemaysaa inaad shaqadii aad qabatay aad natiijo soo saartay macnaha meel baad ka qaaday meel baad geysay yacni ma dareemaysaa natiijo shaqadan inay leedahay mise shaqadaani waa bilaa natiijo oo maanta meeshaad ka soo kacday beri baad haddana ka bilaabi haddana beri kale ma jirto 3 bilood wax soo saara ma jiro 6 bilood wax soo saara ma jiro 1 sano wax soo saara ma jiro shaqadii wad qabataa haddana wax soo saar ma laha mise shaqadaadu waa shaqo wax soo saar leh talaabo walba aad qaado waa talaabo aad markaasi wax soo saar aad ku yeelanaysid oo natiijo la dhahayo shaqadan hebel iyo hebel shaqadan uu qabtay mise waa shaqo natiijo leh oo marka shaqada dhamayso waxa leeyahay hebel aan natiijada shaqada soo saaray waa qodobka labaad laga rabo inaad markaas ka eegto shaqada inay kugu habboon tahay in kale su'aasha saddexaad shaqadan aad qabanayso ma leedahay saameyn ma leedahay saameyn ma leedahay saameynta saddex dhinac baad ka fiirinaysaa kow saameynta adiga saameyn ma kugu leedahay adiga noloshaada wax ma ka bedeshay shaqadaani macnaha way aragnimadaadii khibradaadii aqoontaadii mansabkii iyo levelkii aad nolosha ku joogtay isbedel adiga nafsaani ama ka dareentay shaqadan haddii aad ka dareentay is okay waxaad fiirinaysaa haddana shaqadan aad qabanaysid dadka adiga kula shaqeeya miyay wax kusoo kordhiso wax ka bedesho iyaga minaha shaqadaani dadku ma kaaga dambeeyaan dadku ma ku ag dareemayaan shaqadaani wanaag iyo niyad fiican ma ku ag dareemayaan dadka adiga kula shaqeynayo soo goob aad ka shaqeynaysiin shaqadan aad qabanaysid sidee bay u arkaan sidee bay shaqadaada u saameynaysaa iyaga ma ku faraxsan yihiin shaqada inaad qabato
adiga ma kaaga dambeeyaan, adiga wax ma kaa weydiiyaan, yacni adiga waxa weeyaan number 1 adiga ma u tahay shaqada marka loo eego. waa su-aasha labaad ee lagaa inaad ka jawaabtid si markaasi adigu aad shaqadan kugu habboon tahay in kale. su-aasha saddexaad, bulshada aad u adeegtay oo shaqadan aad u qabanaysid ee aan meeshan kula joogin laakiin customerka ah ee marna imaanaya marna iska baxaya, saameyn noocee ah ayay shaqadaada bulshada ku yeelatay? micnaha shaqadaani 4 sano qabatay ama 3 sano haynaysa, bulshada kale miyay dareemeen shaqadaada? micnaha marar fara badan shaqadaada miyay ku farxeen in adiga kula shaqeeyaan, in adiga customer kugu noqdaan, in ay adiga saaxiib yacni ay kula noqdaan, miyay dhashay shaqadaani? haddii saddexdaas su-aalood jawaabahooda markaasi shaqada aad qabanayso ay tahay mid yes ah, waxaan dhihi karnaa shaqadaani waa mid adiga kugu habboon. laakiin haddii aysan ahayn, shaqadaasi ma wacna in tahay mid kugu habboon, ma ahan. saas darteeda dadka marka ay shaqo qabanayaan 2 nooc ay noqdaan. dadne shaqada iyagaa doorta, iyagaa ka fakara inay maxaa weeyaan shaqadan ay ku habboon tahay, inay waxaa weeyaan shaqadaani ay ku wanaagsan tahay, waqti bay geliyaan, juhdi bay geliyaan. waa dad qiyam leh, waa dad go'aan leh, waa dad naftooda yaqaana, waxay ku fiican yihiin bay yaqaanaan, waxay ku litaan bay yaqaanaan, shaqada noocay rabaan bay yaqaanaan. waa dad iyagu go'aan gaara, go'aanka ayagaa gaara shaqada ay dooranayaan. dadka qaar tallaabada ama astaanta noocaas bay leeyihiin. astaanta labaad dadka qaar ay leeyihiin waxaa weeyaan shaqada waa loo dooraa, shaqada waa loo dooraa. yacni qof ay saaxiibo yihiin ama qof ay qaraabo yihiin ama qof waalid u ah ayaa shaqadan u dooraa. ismuu weydiinin shaqadaani adiga ma kugu habboon tahay, laakiin waa loo dooray, deetana shaqadii buu qabtay. hadhowdii marka waxaa ku soo baxaysa marka 2 qodob: in qofkan shaqadii loo dooray ay tahay mid isaga ku habboon, oo inuu ilaahay u waasiciyo, ilaahay u fuudeeyo, oo isaga mawhibadiisa iyo waxyaabahaasi ay u noqoto waa laga yaabaa. waxaa kaloo suurtagal ah shaqadii qofkaani loo dooray inuu qofkaani ku xanuunsadaba, stress iyo walwal iyo xanaaq iyo niyadjab fara badan inuu ka qaado ayaa suurtagala. sababtu maxay tahay? sababtoo shaqada qofkaani waa loo dooray, asagu ma dooran. sidaas darteeda isaga umay wanaagsanaanin shaqadii, noocii uu ku habboonaa maysa noqon. marka mar walba waxaa wanaagsan shaqo haddaad qabanaysid waa in aad shaqada adigu doortaa, shaqada inaad adiga ka fikirtid, shaqada inaad adigu aad waxaa weye waqti gelisid. shaqadaani ma kugu habboon tahay mise kugu habboonayn, xagee kaaga habboon tahay? waxyaabahaasoo dhan waa muhiim. marka waxyaabaha qofka lagu tilmaamo inuu yahay qof wax soo saar leh waxaa ka mid ah baa la yidhahdaa qofkaani shaqada uu qabanayo inay tahay shaqo isaga ku habboon. laakiin haddii shaqadaadu aysan kugu habboonayn, wax soo saar ma yeelan kartid. haddii shaqadaadu aysan kugu habboonayn, natiijo ma yeelan kartid. qof walba fiiri, nolosha qof walba oo wax soo saar leh waa qof shaqada uu qabanayo ku raaxaysta, iyada wanaag uu ku dareemayaa, qalbi fiican uu ku dareemayaa, asxaab fara badan buu ku yeelanaya. marka saaxiibayaal, jaranjarta saddexaad ee aan rabo maanta inaan kula wadaago si aad wax soo saar u yeelato waxaa weeyaan waa in aad shaqo adiga kugu qalanta waa inaad doorataa. insha allah tallaabada afaraad ayaan kula sheegaynaa muuqaalka xiga. hadii halka la soo gaartay wixii tale fikir ay raab insha allah. adaa mahadsantihiin, jazakallahu khayran. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.